bisha Ramadaan waa bil aad iyo aad muhiim u ah noloshaada isla markaana waa bisha sagaalaad ee bilaha islaamka ahi bishan waa bishii la furi lahaa abwaabada jannada isla marhaantana la xiri lahaa albaabyada naarta haddaba waxaan rajaynaa inaad dhammaanteena ka wada faa'iidaysan doono insha Allah bishan khayrka badan السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دماء أصحابتم الربوة جوكتان وإن سلامة ميقعيق وعبي داهر هذا فيديو وحاجة علينا إن كوسو قد بيو أبليكيشنان سليه هاي وحيكوا عن فكران إنت كوكو جرت بشان بركاسن إي رمضان هذا أبليكيشن كوات إلا وذاقا ميقعي سوحة لها قرآن فو أندرويد برامج كاني وحوكو سهلة إنت كوكو جرت بشان رمضان إنا قرآن كسوقة تنتد إسلام ركانا aad quraanka laga yaabo inaad akhrin sanadkii la soo dhaafay insha Allah bishan akhrisid si ay kugu fududaato waxa laga yaabaa inaad xilli masaajidka ku gashay weysid haddaba mobilka ayaa kugu sahli doona inaad quraanka ku akhriso inta lagu jiro bishan barakeysan ee Ramadaan haddaba barnaamijkan qaabkan uu soo baxaya qaybta koowaad waa suura yacni suurooyinka quraanka oo 114 suurad ee quraanka ay ku arkaysaa suurad walba asoo markaa ku sheegayo dhammaan jusaska suurad walba ay ku jirto hadda u jeedid okay hadii aad u baahan tahay suurad daartid ayaad ku dhifan kartaa waa kana suuradul faatiha oo kale marka ku dhifato yacni halkaani hoose waxaad u jeedaa in shiiq walba uu ku aqri karo hadaa u baahan tahay in cod lagu aqriyo shiiqaarta ayaa markaa ka dooran kartaa haddaba option-kani internet ayuu ku xiran tahay haddii internet haysatid codadkaasi waa dhegeysan kartaa haddii internet haysan ma dhegeysan kartid okay qaybta labaad waa jusas quraanka jusaskiisa waa kana juskaartid koowaad labaad ilaa iyo dhammaan jusaska mid kaarta ay ka dooran kartaa haddaba waxaan rajaynayaa in application-ka ka faa'iideysan doontaan application labaad aan jeclahay inaan idin faa'iideeyo isla marhaantaana kugu caabi kara bisha Ramadaan inta ku guda jirtid waxaa loo yaqaanaa Ramadaan haddaba application-ka qaabkan ay u soo baxaya daawadayaal marka koowaad ee application-kan aad soo degsatid waxaad dooranaysaa direct ama automatic location si hadhowto uu aqoonsado meesha aad joogtid hatta ana application-ka sidaas waa soo sameeyay si toos ayaa u joogaa haddaba waxaa muhiim ah daawadayaal qaybta inaad taabatid menu-ga waxaad aragtaa inuu barnaamijka option aad u fara badan u leeyahay waxa kamid ah prayer times yacni waqtiyada salaadiyada ayuu leeyahay u jeedaan daawadayaal salaad walba waqtigeeda halkan ayaad ka arkaysaa sidoo kale wuxuu leeyahay ducooyinka Ramadaan wuxuu kale leeyahay calendar Ramadaan haddaba daawadayaal application saddexaad oo leeyahay inta bisha Ramadaan ku wada jirto waad ka faa'iideysan doontaa isla marhaantan uu ku caawin karaa waxaa loo yaqaanaa Muslim Pro application caana isla marhaantaana aad iyo aad u faa'iido badan oo insha Allah wax badan aad ka faa'iido doontid option badan ayuu leeyahay waxa kamid ah prayer times waqtiyada salaadida application-ka kii hore uu ka fiican yahay waqtiyada aad iyo aad ayuu u helayaa haddaba labadaas application-ka soo dhaafnay kan wuxuu ku xiran yahay mar walba inaad location-ka fatid kadib automatic location aad ka dooratid si wadanka joogtada uu aqoonsado barnaamijka haddaba salaad walba halkan ayaad ka arkaysaan daawadayaal option-ka labaad ee barnaamijka leeyahay waxa kamid ah quraanka oo idil halkan ayaad ka arkaysaan daawadayaal waa ka wada akhrisan kartaan ma sha Allah ayadoo markaa lagu fasirayo luqadda arabtid markaa barnaamijka soo furinaysid oo soo degsanaysid waxyaabaha lagu weydiin doono waxa kamid ah luqadda baan kugu fasirnaa oo translate kugu sameynaa quraanka ana ingiriis soo doortay adiga luqadda arabtid ayaa markaa aad dooran doontaa daawadayaal barnaamijkan optionada kale uu leeyahay waxa kamid ah qibla okay qibladaada ayuu raadinayaa hadda u jeedaan daawadayaal wuxuu ii tilmaamayaa meesha ee Maka ee xigta okay waa kaas Sacuudi Carabiga direction uu ii tilmaamay halka ay qiblada ii xirtana uu ii sheegay meel walba oo joogto ayuu markaa bartilmaamaysan doonaa isla marhaantaana qiblada kugu jiheed doonaa option kale daawada uu leeyahay barnaamijkan option badan ayuu leeyahay 99 magac ee Allah subhanahu wa ta'ala uu leeyahay dhamaantood inta ay ku arki doontaa ayadoo micnaheedu ay wadato sidoo kale daily inspiration waa heli kartaa optionada kale aad u baahan tahay inaad waxaad taabanaysaa more saad waxyaabo kale u aragtid waxa kamid ah ducooyinka aad ku dhufto waa kana dhammaan ducada doortid all ay noqonaysaa okay barnaamijka waxyaabo kale u leeyahay waxa kamid ah oo yacni rabo inaan ila wadaago masku waa kana barnaamijka masku aad ku dhufto wuxuu ku sheegay inta masaajid ay ku dhow markaa haddii aad joogtid for example oo kale meel cilaha aad aqoon waxa taabanaysaa halka masku wuxuu ku sheegayaa oo ku bartilmaamsanayaa masaajidka ku dhow iyo inta metro ama yacni cabir uu ku jiro masaajidka ku sheegay hadda masaajidka u dhow ani waa
masaajidkan alqaliil dhahayo wuxuu jiraa 402 mitir ayuu jiraa wax walba option aad u fara badan ayuu leeyahay dawdayaal tasbiix waa kana hadda ku dhifto tasbiix hadaad waa kana waa tirinaysaa okay dhammaan si sahlan tasbiixdii xataa soo gadi jirtid ama xarig muu baahnid ama gacanta ma baahnid halkan ayaa ka caawinaya barnaamijkan ayaa ka caawinaya wuxuu kula leeyahay dawda soo jeedaa maka live taasoo micnaheedu tahay yani live maka ka socda sida taraawixdo kale halkan ayaa ka daawanaysaa si toos ah haddii dawda waxaa jeclahay inaad ka faa'iideystaan saddexdaas barnaamij aad xiiso badan barnaamij kale way jiraan waqti ayaan saamixeen waxa rajinayna dawdayaal aad insha Allah bishaan barakeysan ee Ramadaan dhamaanteena iyo inta muslimiin ee adduunka ku nool ee ooda faa'iideysan doonaan sidii uu loogu talagalay insha Allah bidina rakiim ilaahay ajri xasanaad naga siiyo soonkeena insha Allah waxaan rajaynayaa cafis iyo masaamax meel walba joogtaan bye bye